markabka magaciisa waxaa la yiraahdaa Urukris waa markabkii oo qodi lahay shidaalka Soomaaliya ee Turki wadanka Turki ayaa soo dhiibay oo kadib heshiiska dhacay Soomaaliya iyo Turki bishii 3 sanadkan markabkan ayaa la sheegay intuu hadda safarkiisa dheeray oo ila from Turki ilaa Soomaaliya as bilaabay markabkan ayaa la sheegay intuu soo mari doono dhulul badan oo aad iyo aad halistood u wato oo la isku haysto ilaa had dagaal la isku haysto markabkan wuxuu soo mari doonaa Mediterranean Sea in Canal Switzerland oo Masar iyo badweynta India oo xagga Soomaaliya iska soo gali doon markabkan maxaa la sheegay intuu Soomaaliya soo gali doono muddo 29 ilaa 30 birir gudahood ayaa soo gali doona oo markii taan imaado as hoosho oo in shidaalka soo saaraas hore ka sii gali doon oo la bashquuli doono hore ka sii gali doon run ahaantii aniga ahaantii maxaa dhigi karaa markabka maxuu Soomaaliya ku soo hagaagi doona ama shidaalka soo saar doona waqti adduunka dhamaal shidaal